الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد دمان مدحتك لدوان هالكي سهوتي أول كدليرada iyo marti sharafta faraha badan kala duwan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamkii badan kadib waa waqti dambe ma dheereynaya waan koobi doonaa haddii allaha wadda ogolaado waxaan ugu horraysiinayaa inaan soo dhaweeyo axmed yaasiin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada gudoomiye soo dhawow qalbi furan iyo laab furan iyo qalbi faraxsan iyo weji furan ku soo dhawow aad iyo aad baanu ku soo dhawaynaynaa waxaanu ku leenahay waa xisbigaagii lagama laha sidii hore iyo marar badanba loo sheegay waddani waa lagu soo kala horreeyey lama kala laha ku soo dhawow shalay baan anigu waa kulmiyaha waad garanaysaa shalay anigu waa kulmiyaha waynu aalaada ku kala duwannahay marka haddana inaynu halka isugu nimaadnaa waa fiican tahay oo waa mahadinahay cabdilaahi geerjira wakaalka kaadee kulmiyu ahaa waddani waxaynu doonaynaa inuu noqdo saldhig ururiya dhammaan aragtiyaha kala duwan oo mideeya kala duwanaanshaha qaranka kuna hogaamiya waxa wanaagsan iyo inuu ka dhabeeyo himiladooda wanaagga iyo himiladooda inuu ka dhabeeyo ku hogaamiya baynu doonaynaa insha allahu tacaala oo ummadduna u dhan tahay oo midaysan tahay baynu doonaynaa taasaad qayb ka noqon taasaana cidna martuub ahayna barbarkaaga qabanaysaa marti kuma tihin waa laga soo horeeyo soo dhowo baan leeyahay midna waa laga yaabaa in dadku sida uu ku odhanayo u kala duwan yahayo waxaa laga yaabaa sidii ragiiga horeeyey markaad sheegeen inay u qaataan in axmed yaasiin uu ama la soo eriyey ama uu hunguri u yimid mabda'iisaa keenay mabda'aagan insha allahu tacaala meelaad ka dhabayn karto oo aadba aad ku dooratay weeye waddani waad ka heli doonto akhyaar aa isku fikir dhowdihiin israaci kartaan isla jaan qaadaysaan marka waxaan leeyahay fikirka oo iraadaad iyo jeeraale laga yaabo caan noqda ee odhanaya waxa la yidhaahdo siyaasaddu dana joogtaa bay leedahay ma laha maslaxad joogta ile saaxiib joogta ma laha oo laga yaabo dadka in badan inay si tarjumad qaldan ka qaateen asla waxa laga soo dheegtay nin ingiriisa oo ka hadlayey dowladdiisa ka hadlayey dowladda ingiriis oo madaxu ahaa oo tilmaamayey britain waxay leedahay dana joogtaa ee saaxiib joogtaa ma laha marka wuxuu ka hadlayay britain ee shaksi kanu hadlayay qarankaa dana joogtaa leh ee qofku inuu la yidhaahdo dana joogtaa ayuu ku guurguuraa ee saaxiib ma laha ama mabda ma laha sax maaha mabaadi'da siyaasaddu saldhiggeedu waa qarannimada wixii qaranka ku xun qofku markuu arko jihada qarankuu socdaa inaanay saxayn markuu arko waxay aragtida ay ku kala duwan yihiin markay noqoto mid aasaasiya oo saldhig ku leh qarannimada ayaa geedigiisu yahay geedigu guurayo axmed yaasiin taasaan ka aaminsanahay inuu geedigiisu ku salaysan yahay oo u soo guuray inuu qaranku guuro guri rays leh inuu qaranku guulaysto dhammaan wax ku dhisan waxaan leedahay soo dhawow adiga iyo culimadaada iyo karaamadaada la soo dhawaada culimadana waxaa lagu soo dhawaada insha allahu tacaala aad iyo aad baan dhammaantiin soo dhawaynaynaa waxaan uga gudbayaa guud ahaan waxa weeye waxaa bilaabmay jawgii doorasho marka waxaan ku celinayaa midkii madaxweynuhu ka dhawaajiyey ahaa in dadka reer somalilan ay u diyaargaroobaan kaar bedelashada oo dadkii kaararku ka lumeen ama aan markii hore kaararka qaadane ka habsaamay ama meel kale intay iska diiwaangeliyeen doonayeen inay dib isu diiwaangeliyaan saddexdaa qolaan filayaa inay u furan tahay marka waxa weeye waa inay goobaha tagaan oo u diyaargaroobaan oo iska diiwaangeliyaan gaar ahaan gobollada la bilaabay waa inay iska diiwaangeliyaan marka waxaan leeyahay taas waa fariinta guud ahaan aan shacabka reer somaliland dirayo midka labaad dimuqraadiyaddu banaanka dimuqraadiyadeed aynu dooran aynu kula soo baxno in
hoggaanku isku bedelo hanaan dimuqraadi baynu dooranayn qofba maalin la doorto dimuqraadiyadda marka laga hadlayo laba nooc weeye mid waxa la yidhahdaa wakiilada qofku doortaa ra'yigiisa ku matelaan waa ta ay isticmaalaan inta badan dowladaha ay hoggaamiyaan baarlamaanka ay doortaan waa waxa baarlamaanka loo yahay golaha wakiilada shacabku matelayaa oo wakiilkaya midda labaadna waa doorashada daaragtiga ama tooska ah oo yani toos loo dooranayo madaxdii oo daaragti democracy la yidhaahdo oo marka toos waxa loo dooranayo qofkii madaxday doonayay taasina waa ta hoggaanka ama madaxweynaha lagu doorto iyo madaxda kala duwan ee markaa sida tooska ay u saamayso taa marka labadaba inagu waynu isku daray tii madaxda hoggaaminaysa dalka loo dooranayay iyo tii wakiilada loo dooranayay labadaba waynu isku daray oo Soomaaliland hanaankeenu qaadanay waa mid labadaa koobsanaa maadaama labadaa koobsanayo waxaa soo horreeyey oo doorashadiisii taagan tahay tii golaha wakiilada aynu dooranayno waa golihii isbeddelka salaantii koobaad aynu cagta saaraynay isbeddelka weyn isbeddelkeenu doonayno inuu muuqdo isbeddelkeenu doonayno dalkan inuu ku tallaabsado waa tii koobaad weeye marka waxaan leeyahay qof walba fursad baad haysataa laga bilaabo doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka soo socotaa waa hannaankeenu wax ku beddelaynay hadda looma baahna inaad cabato hadda looma baahna inaad indhaha taagto maanta codkaaga wax ku beddel oo aragtidaada iyo waxaad doonayso ka dhabe waxaysan igu tahay ama sallaantii cagta la saaray u tahay oo ku xigi doonta insha allahu tacaala inaynu madaxda dalka hogaaminaysa inaan dooranno insha allahu tacaala waddani baa noqon doona ka loo doorto ee dalka hoggaamiya ee hagaajiya ee ka dhabeeya himiladiinna aad iyo aad baan dhammaantiin idiin mahadinayaa sidaad u soo qayb gasheen u soo camirteen axmed yaasiin walaalkay inaad u soo camirteen oo u timaadeen aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka soo dhaweeye gudoomiyaha soo dhaweeye